Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga Yusra Media. Bacdi salaam walaaleyga qaaliga, maanta waxaan jeclaystay inaan igula wadaago meeshan arrin aniga iga fajicisay. Aan filaya arrin ayaamahana baraha bulshadana aad isku haysa, aan filayana adinkana inay ama kaagnigu riday. Arrintan oo ah mowqifka calanka iyo astaanta qaranka uu soo hirgeliyay baraha bulshadana aqoontiisa ama waayo aragnimadiisa uu nagula wadaagay walaalkeena of Sufyaan, taasoo bara bulsho hogaamiye kasta intooda badan ay dhaliileen, taasoona ku raacaynin. laakiin dhaliil qof markii la dhaliilo walaalahayga qaaliga muslimka gaal waxaan ka waraynaa inaad dhaliisha cadaanteeda keento. Black and white waxay u yaqaaniin luqadda qalaad. wax aad saaran yahay ama mudug saaran yahay kulama doodi kartid qof iftiinkii banaanka cad taagan cadeyntiisana wata. haddaad kula doortana waa ina gartana ku gashaa garna kaa baxdaa. waxay wareysi uu wiilkan Soomaaliyeed u soo galay u soo jiitamayaba walaaleyga qaaliga anoo hadalkan igu sii dheereenin ayaa waxaa dhacday inuu wariyacaan Soomaaliyeed Cabdulxaafid lagu magacaabo inuu ku casuumo wareysi. sidaan naqaanana wariye markaa tahay oo adduunka caalamka ayu nooc jismida doonta ka soo jeed diinta doonta xambaarsano. markaad wariye tahay oo dad aad casuunto waa inaad warinimadaadii xadkeeda aad soo dhaafin. dad badan waxay ku hambalyeynayeen halgamayihii Cabdulxaafid oo taariikhda dhiga camal. aniga laakiinse bulshadeeda igu xiran iyo intay daawan doonto runtan jeclahay inaan la wadaago oo meeshan xaqiiqada jirta aan nigu indha aad qaada aad ila indha ila waagi nigula kiinbariyo. mugdiyan ku jirnaa, mugdigana waa inaan iska soo saarnaa. xaqiiq ahaantiina qof wax ku siiyo waa helaysaan aan ku magacaawna Soomaali ama ku maamaanadaana, laakiin qof wax kuu sheega waa yaryahay. xaqiiqdana iskuma baraarujino beertan isku dirnaadan Soomaalina run ahaantii. walaalkeena wariyaha ee Cabdulxaafid oo meeshaas warinimo booskeeda soo fadhiistay oo xadkii warinimo intuu meel uga leexday dood wadaag ka dhigay arrintii. meeshaas waa igala daawateen intiina badanna wareysigaas waa ku baraarujisantiina filayaa. Abu Sufyaan oo dhowr mar asagoo haddana isceelaya ogna walaalkiis qaladaadku ka galaya ayaa haddana uu ku baraarujinayay walaalow buugaaga ha ka soo tacliintaada iyo waxaad xambaarsantahay astaantaada ka soo fogaanin xadkayga waa intaas. in la isku xadgudbana waa laga habboon yahay markii walaaltinimada iyo Soomaalinimada la wadaago. maanta walaalahayga qaaliga ee Soomaaliyeed dalkeena waxaa ka jira wax federaal la yiraahdo, taasoo haddii aad fiiriso dad isku qoomiyada lagula talagalay iska badaa dad isku qoomiyad ah, isku jismi ah, isku dhiig ah, sidaan ugula jeedo qoomi ahaanta iyo isku diin xambaarsan isku luqad wadaageen. dad kala nooca oo diimo kala nooca wato oo isku jismi aan ahayn ayaa federaalka lagula talagalay. taas waxay cadeynaysaa inaan anaka isku mashquulsannahay, anakana lagu mashquulsan yahay. horaa hadeer ka hor waxaa lagu soo haysay ama lagu soo tiriyay Afrika hurdaay aan lagugu hurdin, in jiifo aan lagugula jiifan may ahayd. adinka taas sheegi doono walaaleyga qaaliga, laakiin xaqiiqada haddaad jirto waa sidaas. waxaa fiican markaad wariye tahay oo dadka aad wareysanaysa, waxaan ugula jeedan kusoo laabanaya wareysiga uu qaaday Cabdulxaafid walaalkeena Soomaaliyeed. mowqifka aad ka hadlaysa aad wareysanaysid inaad usoo diyaargarowdo tacliin wareysigaaga dadka aan qofka waxaa weydiinaysa ogsoon tahay waxaad u sheegaysana ayna noqonin wax adiga kugu soo laabta. haddii taas ay noqotana inaad dib iska saxdo
soomaalideena waxaan naqaanaa wax la yiraahdo dhammaanteena ma wada aha laakiin inteena badan isma oga islaamka laa iyo nin kastaba qowminiisa qoorta ugu xiran laakiin nin kastaba qowminiisa qoorta ugu xiran marayna shaqaynaynaa jirta walaalayga qaaliga ah cabdulxafiid waa dheeraaday cabdulxafiid wuxuu gaaray inuu mataalooyin soo qaato oo 10 meeris galo xagga diimeed ha ahaato kutubadii nabiyadii la soo dhaafay calayhi wasalaam iyo taariikhdii islaamka ku soo waafaqo ummadeena maxamed sallallahu calayhi wasallam ee haddeer iyo kutubka furqaan sharciga ka taagan taas haddii laga soo tago walaalayga qaaliga oo lagu wiilka walaalkeena u meel cad banaanka cad oo waacig oo xaqiiqad ah ugu sheegay sida ay wax u jiraan una caddi sax waad iga saxsantaa marna kalaankiiska ma soo bixin wariye waxaa la arki jiray garna qaata garna ka baxda laakiin wariyatiisa maqlaatan kalena aanan u dhug lahayn qofka markuu la hadlay waa wariyata waa inaad dhagaysataa waxaan tusaale nigu soo qaadayaa aad aragteen walaalayga qaadiga dhagihiinana aad ku soo ceshceshan kartiin oo asagana cabdulxaafid walaalkeena wariyaha Soomaaliyeed uu ku jiro channelkiisa waxay tahay inuu yiri meeqa calan ayaa jirta maadaama calanka ay ka doodayeen arinteeda meeqa calan ayaa jirta isku ag adduunka who cares maxay difference u dhaxeeya ama kala duwanaanshaha u dhaxeeya ay qiimo leeyihiin camal subxaanallah casa wajallaan leenahay calan walba astaan buu saaran yahay calan walbana ujeedo baa loo sameeyay sidaan aan ognahay inta aan ogeynna maanta aan u sheegayaa Soomaaliyeed waxay tahay walaalayga qaaliga ah ee Soomaalinimada iyo diinta islaamka ay ku weyn tahay waxay tahay Soomaalinimo markaan dhahaya ma aha aniga calan iyo hele iyo waxaan ka hadlayaa waxay tahay xaqiiqda jirta oo ummadda iyo ciidda sidaan ognahay gumaysta walbo dal gumaysta wuxuu ka tagaa astaan asaga taariikh ku reebayo waxaana aaminsanahay in badan ee Soomaalina ila aaminsan tahay calankan inuu suurtagal noqon karo astaan looga tagay sidii dalalka badan maanta aan uga jeedno dalalka caalamada isku eg oo walaalkeena soo hadal qaatan haddaan qotan galo wuxuu yiri Luxembourg iyo Netherland ama Holland sida u taqaaniin Soomaalidiina waa isku calan uu yiri haa nacam waa isku calan waa runtiis Cabdulxaafid laakiinse maxaa isku calan ka dhigay waa astaan cadaynaysa Netherland inay xukumi jirtay ay adoonsan jirtay ama sida u taqaan gumaysan jirtay ummadda Luxembourg ku nool astaantii ay gumaysiga lagu reebay ayaa isku calan ka dhigtay boqortooyadii Netherland ee Oranje Nassau la dhihi jiray ayaa xukuumadeeda ay hoos imaan jirtay Luxembourg haddaan u gudubno labada wadan oo kale uu sheegay New Zealand iyo wuxuu yiri Australia New Zealand iyo Australia calankooda aad isku soo shabaha taasna waxaad sababtay inay gumaystihii Ingiriiska ay ahaan jireen oo gumaysan jiray Ingiriiskana calankaas meeshaas ka taagtay ay tahay astaan markuu ka tago gumaystaa inuu kugu reebayo Mexico iyo Venezuela uu soo sheegay Mexico iyo Venezuelana Spain baa xukumi jirtay ay gumaysta u ahaan jirtay ay hoos imaan jireen xukuumadooda labadaasna meeshaas isku calan ay u noqdeen wuxuu soo hadal qaatay oo kale walaalkeen qaadigo sii fogaaday Ireland iyo Ivory Coast uu yiri
Ireland iyo Ivory Coast saan ognahay ingiriiska wadamada wuxuu ka jiraa kaalinta koowaad ma dhihi karno laakiin kaalinta labaad ama saddexaad ay gumaysiga adduunka gumaystay casriyowana ingiriiska Ireland iyo Ivory Coast calamadooda ay saasime asaana gumaysan jira asaana xukumi jira waa soo dhaadhaco dalalka islaamku u soo dhaadhaco walaalkeena carabkiisa kaliya ma dheeraanine aragtidiisana maasha Allah ay noqotay Yemen iyo Masar uu yiri isku calankooda isbaxa taasoo calaamad su'aal anaka shacabaan ugu raabay maxaa yeelay Yemen kowde Masar labade Syria saddexde iyo Iraq afarte calanka waxay ka midoobaan guduud cadaan iyo madow taas oo ahayd waqtigii la dagaaltamayay oo ay ahayd jihaadka guduudka wuxuu astaan u yahay dhiigii daatay waqtigii jihaadka ee islaamka cadaanka wuxuu astaan u yahay xornimada islaamka waqtigaas uu qaatay madowgana wuxuu oo calanka ku jira wuxuu kalarkaas matalayaa ama astaan u yahay taariikheed in mugdigii laga baxay marka waxaa jirta wadamo kale oo saaid u badan oo gumaystayaashan ay soo gumaysteen marka waxaan dhihi karnaa haddii Soomaaliya ay caddahay inay Talyaaniga uu keenay calankan uu yahay calan gumaystaha raadkiisa uu raabay ay noqotay sidan Soomaaliga dhamaanteena u garaneen waa u jeednaaye inay shirki ama alla ka fogaasho noo sababaysa astaanta qaranka inaan bedelno midaan anaka leenahay suubsano wax dhibaataa Soomaali uma aragtaan uma leenahay intooda badan dadka muwaadiniinta ah uma arkaan maxaa yeelay waxaad leedahay markaad suubisato waad ka sharaf wanaagsan tahay wuxuu caloolkuus adiga ku bahdilay ku gumaaday dhiigaagana daadiyay taariikhdiisa kugu raabay inaad lagu aqoonsigii dadnimadaada ku gadato kugu taagnaada maadaama xorinimo aan qaadanay maadaama aan nahay dad xora sida la sheegayo taasna maalinta baan ka hadli doonaa inaan xornahay inaan gumaadkii weli ku jirno shisheeye maxaa noo diiday inaan anakana waxaan anaka iska leenahay xorinimo ku helno oo ataaga aan is ataagayno iyo jalaafada aan isku dhigayno isbahdilaada aan isbahdilayno iyo siyaasadda aan siyaasayno Soomaalinimo aan deyno oo midowno maxaa diiday inaan iskala qeybiska iyo isfederaalismada aan ka baxno taas waan ka hadli doonaa mar kale laakiin waxaa fiican haddaan Cabdilxaafid aan u soo laabto wareysigiisa si fiicanna aan u dhageystay intiina ay dhageysan doonto intiina ay dhageysataba aad ogsoontihiin haddeerna ay maqlaysiin dhageysateen dhagihiinana ku soo ceshateen aan hubana Soomaali inay danaysay intooda badan wareysigaas waxaan cadeynayaa inuuna wareysi ahayn dood wadaag ay ahayd dood wadaag uu ku bariiqday wariyaheena Cabdilxaafid dood wadaag aan xaqiiq ku taagnayn dood wadaad ee cadeynteeda kale uu keeni karin waxaana la yiraahdaa ila meereysa wax la yiraahdaan ku wareeriyaas wareerina kaalaan isla wareerne maxaan u dhahan ku wareeriya aan is wareerina kaalaan isla wareerne waxay tahay mowqifkaaga ka soo dhaqaaqo ku leeyahay oo had eedeen Abu Sufyaan wuxuu taagan yahay haya waaye wax diidaya ii sheeg
waxaan ku qaldanahayna iga sax waan qaadanayaa maya waxaan kaa saxo ma jirto xaqiiqdaa ku taagan tahay niyadda waaya hadda laakiin carabkiyaan soo qabanin waaye wixiiba sidii ha u dhaceena ka aamus waa waxa maantay iska badaa ummadda kale qaaradeenna aan ku noolnahay maantay aan bilicdeenna kor u qaadi jirna ugu hooseyno waa maanta adduunka waxaan uga harnay soomaali ayakaa isreeba soomaali waa isdhaliilaysaa waa isdacaayadeynaysaa laakiin xaqiiqda kuma taagna soomaali sharci ma dhoortee waa isku kortumataa taas waxaan ku leeyahay cabdulxafiid waxaa la yidhi i warayso mowqifay ku balameen marti baad soortay martidana waa ogey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qiimo iyo qaayo agtooda inay ka lahayd waan ognahay haddaan soomaalinahay matirsoorka inaan ku fiicannahay astaanna aanoo tahay dhaqan haddii diinta xataa laga soo tago taasuu uu Abu Sufyaan uu u ahaa martinimadana uuna ku xafidin cabdulxaafid laakiinse wariye cabdulxaafid uu ku taraaraxayo sidaan ma samaysa maahe maxaa ka jira wax la yiraahdaa u furan sidaan sheegay wariyaheenna maradaa ka dhacday waa wariye Soomaaliyeed maradiyaa ka dhacday waa isku qalqalay markuu xadgudbi rabo joogso saama si kala jirta markaad rabto inaad sirdoon noqoto adoo si sirdoona u howlgasho adoo wariye ah rabtana hadal inaad qof ka soo dhaliso kaftan iyo dhoola cadeesa lagu galaaye adoo doodaysid ma leedahay ganjeelada aan kugu jabin subxaanallah waa cadday Soomaali bareeda bulshada ay ka dharagtay haddii aan aragnay taariikhda inay qoraysa gumaystaa inuu calanka noo keenay aan ognahay dalalka inta badan oo la gumaystay inay calamadii gumaysiga iyo raadkii gumaystaa iska reebeen maxaa gobnimada Soomaali u diiday walaalkeen haddana ma laha Abu Sufyaan aqoonna uma lihi adinka ka baxsan isku meel isku qaaradna ma joogno laakiinse waxaa isoo jiidata xaqiiqda uu ka hadlay inay Soomaali badan qabto waxaan ogsoonahay dalalka shisheeye ee horumarsan tusaale waxaan igu soo qaadaya walaaleyga qaaliga ah Mr. Mandela oo halgamaa dalkiisa ahaa meeqa sano u xirnaa meeqa sano dadkiisa ku soo horjeesteen waxaa u liiday shisheeyaha oo ilaa haddeer ay gumaadka ugu jiraan dalkiisa wax kale ma ahee waa dalkiisa iyo dadkiisa ka soo horyimaado cimriga uu ku dhamaysta xabsi haddaad ka muuqnin kaa caana cabaag sirtaada yaqaanay dhahan Soomaalida haddaan ognahay dalalka shisheeye ee horumarsan inay ku horumareen dad kale inay ku korgaardiyaan aan ognahay awowyaasheenna iyo dalkeena Soomaaliyeed waxaad saan ka dhigay dadkeenniina awowyaasheenni ayeeyaasheenni iyo firkeenni hore waxa dhameeyay ma waxaan rabnaa waxa haddeer dhibaatadan haysata Soomaaliya inay dib ugu gurato dalkeena dadka u dambeyn doono u hari doono ma waxaan rabnaa sidii New Zealand Australia iyo America inaan noqono qowmiyadeena la tirtiro ma waxaan rabnaa anaka inaan dabar jibino ma waxaan rabnaa keena kor u soo qaadno intaan cirka u qaadno oon shareerno oo xaqiiqda gob la fadhiisano oo dirin u fiirsano oo geed hoostiisa la fadhiisano oo wixii la falanqeyno oo la fiirino haddeertaan cuniga yarkaa ay soo kabcaya oo 6 jirka ama 7 jirka Soomaaliyeed ah hadduu wax yaroo mucjisaa soo bandhigo asoo dalkii ku nool uu tusiyo umadiisa inuu wax u qaban karo oo fikrad ay ku beeran tahay ma kibcina hoosan u liidna muxuu sheegayaa ilmahan baan oranaa Abu Sufyaan muusan dhihin aniga calani keenaya muusan dhihin anaa wax niga bedelaya muusan dhihin anaa ni xukumaya muusan dhihin aniga xil niga raadinaya
laakiin wuxuuna yidhi fikradaanan wataaye cilmigaanan ogahee waxaanan aqoon u lahee waxaanan baaritaan dheeraada in waqti iyo enerji aan geliye walaalayga Soomaaliyeed xaqiiqada fiiriya ila fiiriya haddii la fiiriye oon aan ogaanay haddaan indhoolihii dhagoole intaan iska dhigno aan isla jahwareersiino waxaad beena iyo wixii runa iyo waxaan been ka buuxdo isku wada faaqno oo xaqiiqadii xaqiiq la'aanta aan kala saari weyno oo oligaas aan isku dayno ka waran walaalayga qaaliga taas way tamburaha bulshada ka dhacday Abu Sufyaan wuxuu soo saaray cid ilaa haddeer geed intee la hoorsatay oo baraha bulshada ku casunto tiraahdo saan kula fiirnaa ma jirto waqti gelis wax xaqiiqdiisa wax ka xaqiiqsan keento asaga wuxuu xaqiiqada ku tilmaamay caada saartay ma jirto laakiin af qalalan ayaa la rabaa ninkan in lagu baadilo taasna ma soconayso halgamiyaashii Soomaaliyeed waa kuwa maanta salka dhulka dhigtay aqoonyahanadii Soomaaliyeed waa maanta kuwa daalay kamaysa daalin shacabkoodii daba dhelifka shisheeyaha u shaqeeyo magacaysa macadda uga raadsanaya oo baraha bulshada la taagan maalin kasta xaqiiq darada iyo samcad darada dadkiisa inuu u geysto oo farfar ku taag ku ah oo maseerka la googo'an oo xilma heli doontaa korma oo kici doontaa maxaad noqon doontaa wax walba u qabta oo da ilaahigiisa aan ka baqan kaas way ka dadka lagu geeyay dadkiisa kaas way kan dadka hor taagan kaas mudan inaan iska leexino dhamaantiina waxaan igu ogahay walaalayga inta igu xirnaan doontaba ee Soomaaliyeed inaan kacano عامدين إيشيقين walaalkeena iyo waalidkeenaba awlaadeena iyo dadkan jecelnahaba Soomaalinimada inaan mideeno inaan shacabkeena waxtar ay sameeyaan inay hooyooyinka Soomaaliyeed dalka jooga oo maanta salka dhulka ku baraaqsan inay kacaan naakasta ninkeeda haday xaqiiqada u sheegto imidnimada naakasta haday hooya awlaadeeda ka dhaadhicsiisa qiimaha Soomaalinimada leedahay naakasta haday u sheegto walaalahayga qaaliga waalidkeeda aabeeda ahaado ama adeerkeeda ama ay u sheegto wiilkeeda ay dhashay oo qoriga sito dadka ku laaynaya waxaan ogahay hooyo waxay soo jeediso isku waafaqday ma ay wax kale in dalkaas ka hirgelin karin waxaan ogahay awoodda inay ku jirto aas-aaska nolosha hooyo waxaan ogahay dumarka Soomaaliyeed inay dalkii ka daciifeen wax qabadkiisii waxaan ogahay dumarka Soomaaliyeed inaysan horkac u sameeyeen ayaga inta isjiidanayaan in nimankii ku korgaardiyeen ma la ku tabcadeen maantana awlaadoodii iyo ayakii jismiyadoodii naagnimo ee meesha ku dhacday dalka hadeer haddaan fiirno Soomaaliya Turki wax badan baa laga cisaa hooyooyinka Soomaaliyeed Turki way waxaas ka dhigay Turki dal jira ma ahayn kontak sano kaliya nool yahay asaga dhanba inta calanka Soomaaliya hadeer ay xambaarsanto la isku eedeynaya faraq la isku la jiro oo xaqiiqdii wax bedela la waayay taariikhdina baan ay cadeysay kaas intuu jiray jirta Turkida dhanba la sheegayo shalama heedara 90kii markii lagu jiro Turki wax ma ahayn Turki waxay wax noqotay 90kii aakhirkiisii 1990kii aakhirkiisii Turki waxa wax ka dhigay wadadkoodii waxa hadeer daafac wadadkoodii waa dhalinyartoodii waa aqoonyaankoodii waa sheefkoodii waa odayaashoodii wax garadka kuwaasoo dhan dabada waxa ka wada dhiishana u wada buuga iyo qalankana dawa wada waa hooyo Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed xaas Soomaaliyeed oo kala
waxaana la rabaa soomaalida haddeer waxaa ka maqan dumarkii caad indhiya caad ka fuulay waxqabadkiyaa lagu waayay dalka. waxaan dhihi lahaa oo dhammaantiina niiga tegayaa inaan isdhiirigelino, gacanta isqabsanno. afrikaankii shalay la gumaysanaya calamadii iska dhigayay gunaadkii astaamihii ay ku raabaan gumaystaa iska fogeeyo keligood ismaamula. maxaa anaka noo diida oo muslin ah, anakoo jismiyad qurxoonoo madow leh, anakoo caalamkana loo yaqaan dad aqoonyaana inaan nahay, waxbarashadana heerka sare aan ka gaarno. dumarkeennana dumarka adduunka hadeertaan lagu tartama ay yihiin quruxdooda. la og yahay mutacalimada Soomaali waxa soo saarta hooyo kale inayna soo saari karin ama islaan kale ama hablaha kale inayna soo saari karin. wax soo saarkeennana aad u fiican yahay. anako qurba iyo burbur iyo jajab ku jirno iyo qax ku jirno ayaan wax meel laga keena cirka ka soo dejin jirnay. anako waxaan waxba aanan wax ka dhigi jirnay. waxaan leeyahay Soomaalideeda walaalahayga qaaliga dadka aanan la dhaliiline haddaad qof walaalkaa rabta inaad lugta ka goyso xataa ood adiga ka sareysid dise xaqiiqa oo cadaalada ugula dhaqan. laakiin baraha bulshada intaad soo fadhiisato ha oranin halkaasaad lacday halkaasaad lacday aan la aadee maxaan ku saxaa maxaase igu aadaysa duu ku dhaho aada ka garbixi karin. waa fool xumo wariyeyna Soomaaliyeed xataa xafid una soo yaadsiin intuus dhaay shacabkaaga wax ka dhaadhicsiyo calankaagii daafacaya astaantaadii ayuu bariiqday. wareysigaasna waad dhegaysan kartiin. waxuunan aqoon u lahayn faraha la gashtay, wuxuuna iska daafici karin markay ku soo biyashabato faraha la gashtay. wuxuuna xaqiiqdaas wiilkaas sheegaya Abu Sufyaan yaa bedelkeeda uu keeni karin uu ku santaagay. eedeyska Abu Sufyaan shakhsi ahaan uu eedeynayo ama kooxda uu hogaamiyo oo eedeynaya anaka Soomaali haddaan nahay micno nooma laha. waxaa micnaha lah waxay tahay waxaan xaqiiqdan uu wiilkan sheegay taariikhda dunida ka qoran galbeedka ilaa iyo Transboli ay ka qoran tahay India ilaa iyo Australia laga ogyahay tacliinta. yaa adiga taariikhdee baa ku qoran mas af Soomaali baa meesha ku haysaa. Cabdilxafiid waxaan leeyahay walaalkeena Soomaaliyeed ha isa saxo magacaysa macad saxaafadeedkan uu ku ciyaaray. dhaliil ilaahay ka cabsasho qaran taagnaasho ummad badbaadin iyo waa iska kaacelina isku meel ma gasho. intiina kala walaalahayga qaaliga ee xaqiiqda markasta aan la wadaago ee Soomaalinimada iyo diinta Islaamka aan isku jecelnahay. waxaan iga tegay dhammaantiina salaanta ugu qiimaha qaayaha badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.